وانا سلا أصحابتيدا سيتيهين بليلا أركا دوكومنتيغانا maanta inii soo helay oo ah qaraar ee dowladda Soomaaliya ay gaartay oo qof sharciga Soomaaliga ama dhalashada laga soo ceshtay. Okay, sheekadu say ku dhacday sababtuna maxay tahay? qisadan waxay dhacday ama qaraarkan waxa la fuliyay 1986 yani dowladii kacaanka markay jirtay 80yadii ama 80 nin marka oo la yiraahdo magaciisa Maxamed Cabdalla Shaybani dadka la Soomaaliyeeyay ah oo salahaan Soomaali ahayn ba dowladda siyaad bare ku kacday inay sharciga ama dhalashada Soomaaliya ka soo ceshato sida warqadan ayna tusayso document weey xataa Google dad gashaan waad heli kartaan joornaal weey Soomaaliya waagas joogay qaraarka lagu soo dejiyay asagoo af Soomaaliya asagoo af Carabiya asbaabta looga soo ceshtayna waxa weeye inuu asaga iyo ummado kale waxay sheegan jireen isagoo u ololayn jiray inay Muqdisho ama Soomaaliya ee asal ahaan Carab leedahay oo dhulkan Soomaalidu waxbana ay ka ahayn yani inaan nahay xabashi iyo dadkaas taas marka waxay keentay in sharciga absolute laga soo ceshto hadal la'aan باسبور فرنسيسنا ويسكوتي مركب باسبوركيس فرنسيس كابو قاطع طبعا دلشوين عربة ما هيستو بيكوز وادتك مدة شوقي ميبي أبي سمو يستدك سوق حيبهيد الصومالي دو سونو بتجلسي واجي سلطنوي دستور كمركز الصومالي ويكوشرتا إنه قفك هدو أمنية خلخليو وولان وضك إنا شرعي لغا سو عشان كرو أمنية مركز الخلخليو وحا كامد إنو قفك يراهدو دول كان صومالي مره أما تاريخ ذا فيك لغا شيغو واس دولده very strong بهيد مع انه ايتيدي ومركي دولده soo daciifaysay oo xoogaa khalkhal qaraarka marka madaxweynihii hore Soomaaliya siyaad bare baa gaaray waxa lagu yiri dadkaas oo kale dalkan hortaya iskale طبعا waxyaalaha ajiibka waxa weeye hada taariikhda Soomaaliya dib u urbaartaan inuu toddobaadkii eetiyadii niman badan oo militariya iyo siyaasiyiin baa jira oo mucaarad ku noqday dawladii waagaas jirtay ولو يقاني كعان مع كذا دولة داس ضدك صومالي شرعية كما سو عشان تاس مركا حكتو سيسا إنو شروعية دا يو سيدا لولا رقمو ضدك ودنك كو حد قدبا دولدي هوري أما دولدي كعانكا سفي عن بيوتقاني سبشري برلمان لأنه مستحيل ويقف لن أو تاريخ ودن إنكرايا إنا ليرا ودكا سو كيمين هاوشا للصعودة